Assalaamu calaykum soo dhawaada magacayga waa Sabaax waxaan ahay graphic designer iyo web designer maanta waxaan rabaa inaan ka hadalno adduunkan fascinatingka ee la yiraahdo branding iyo personal brand haddii aad doonaysid inaad u fahantid branding wuxuu yahay si basic level ah saad u isticmaali kartid faa'iidooyinka ku siinaya runtii oo ah sida aad u haysto super power oo kale la soco videogan ilaa dhamaadka insha Allah waxaan rabaa inaan ka hadlo waa maxay branding waa maxay personal branding sideebaad labadaba u samaysan kartaa sideed u abuuri kartaa labadaba so insha Allah ilaa dhamaadka daawo iyo also taabo meesha hoose like-ga iyo subscribe-ka iyo waxa dhawaad garanaysaa waad mahadsantihiin so horta waa maxay branding waa su'aal fiican branding horta marka ugu horeysa sida ugu simbilaysan aan kugu sheegi karo waxa weeyaan aqoonsiga gaarka u ah company ama product aqoonsiga waxa kamid ah qayb visual ah oo qofku xindhiisa ka arkayo iyo qayb qoraal ah haddii ka hadalno qaybta visualka ah waxa weeyaan loogada waxa weeyaan kalarada companyga waxa weeyaan qoraalka fontka nooca isticmaalayaan companygu xagga qoraalkuna waxa weeyaan habka aad ula hadlaysid macaamilka so mar walba anigu customerada waxaan weydiiyaa yaa ku ah target audience aad baan ugu soo celiyaa arrintaas target audience yaa ku ah because markaad ogtahay yaad rabtaan wax ka iibsid ayaad rabtaan soo jeedatid baad u sameyn kartaa kalarada iyaga soo jeedanaya fontka noocaad sileedahay baa ku habboon situationka iyo loogada iyagu xitaa soo jeedanayo iyo hadalka xagga hadalka ahaan waa sidaad ula hadlaysid macaamilkaaga qoraal ahaan markay tahay ama xayeysiis ahaan taasna waa inaad ogtahay target audience-kaaga yuu yahay sidaad usoo jeedatid dadka saxda ah so xagga visualka iyo xagga qoraalka waxa weeyaan adigoo u sameynaya aqoonsi gaar ah oo u ah gaar product ama company waxaad ka fikirtaa branyada sida Apple, Nike iyo Coca-Cola shirkadahani waxay abuureen brand aad u adag oo si fudud loo aqoonsado adduunka oo dhan laga wada garanayo markaad aragto loogadooda ama aad maqasho magacoodaba isla markaaba waad garanaysaa waxay yihiin so waa maxay markaa muhiimadda ay leedahay brand runtii brand haddaad si fiican u samaysid waxay ka dhigi kartaa alaabtaad iibinaysid ama adeega aad bixinaysid inay ka dhex muuqdaan suuq ciriiriya ama suuq lagu badan yahay waxa kale ay fududaysaa inay customerkaaga kugu kalsoonaadaan waxay abuurtaa inay macaamiisha ama customerkaaga kuu noqdaan daacad adiga intay dooran lahaayeen brand kale ama product kale inay adiga ku doortaan waxa kale xitaa kuu fududaynaysaa inaad ku iibin kartid qiimo sare alaabtaada ama adeegaaga so muhiimado badan bay leedahay inaad brand abuurtid waxay kuu fududaynaysaa qiimo sare inaad alaabtaada ku iibisid waxay kuu fududaynaysaa inay macaamiishaada kuu kalsoonaadaan waxay kuu fududaynaysaa macaamiisha inay dadka kale adiga kaa doortaan maadaamaad brand adag leedahay oo iyaga toos maaragtay aad ula hadlaysid so waxaasoo dhan bay fududaynaysaa runtii waa anigii kuu sheegay waxay ku siinaysaa some type of super power markaad u isticmaashid brandingka sida fiican ee sida saxda ah dhinaca kale haddii aanad haysanin brand fiican oo taya leh adigoo haysta xitaa alaabta ugu wanaagsan kama dhex muuqanaysid competitionka brandka runtii wuxuu siinayaa businesskaaga personality ay kugu soo raacaan macaamiisha adigu aad doonaysid so imika waxaan rabaa inaan ka hadalno personal branding sideebaad u samayn kartaa muxuu yahay runtii personal branding waa sida adoo sameeyo branding company laakiin instead of company waxaad u sameynaysaa qof shakhsiya ama adaa isku sameynaya so waxyaalaha xoogga la saaro marka la sameynayo personal branding waxa weeyaan waa maxay horta unique skillka adigu aad leedahay waa maxay experienceka adigu aad haysatid iyo qofkaas ama adiga personalitygaaga so siyaabo kala duwan baa loo sameeyaa personal branding ama waxyaalo kala duwanaa la sameeyaa sidaad u samaysid personal branding marka maxaa adiga kaa dhigaya different maxaa adiga kaa dhigaya inaad ka duwan tahay dadka kale oo aad adigu soo bandhigi kartid experience noocee baad leedahay aqoon noocee baad leedahay so waxaasaad soo bandhigaysaa talabaad waxa weeyaan inaad content samaysid ha ahaato YouTube ha ahaato blogging ha ahaato social media ha kala duwan inaad isticmaashid inaad mid u badatid ama iyagoo dhan runtii equal isticmaashid laakiin mar walba wax ka wanaagsan inaad laba u badatid inta kalena aad just iska gelisid laakiin labadaas focuska aad saartid labadaasna runtii waxay ku xidhan tahay muxuu yahay experiencekaaga muxuu yahay unique skillkaaga iyo waxaad rabtid inaad soo bandhigtid dadkaad rabtid inaad la hadashid bay ku xidhan tahay labadaas social media aad xooga saari doonto ta ku xigtana waxa weeyaan inaad audience-kaaga xidhiidh la yeelatid inaad u jawaabtid inaad la hadashid inaad maaragtay isfahmaysaan iyo also maaragtay dadka xirfadaada ku jira inaad la samaysid networking oo aad la xidhiidhid ood wada shaqeyna la samaysid sidaad adiguna personal brandkaagana usii xoogaysto aad experiencena ka qaadatid runtii dad kaleo industryga adigu aad ku jirtidna ku jira
adduunkan maanta internetka lagu wada jiro runtii personal branding wuxuu ka yahay aad iyo aad muhiim buu ka yahay haddaad tahay entrepreneur iyo haddaad tahay freelancer waxay ku siinaysaa strong personal brand inaad ka dhex muuqatid industry walbaad ku jirtid iyo inaad heshid runtii opportunityo aad u badan marka haddaynu soo gabagabayno brand runtii waa qalab aad iyo aad iyo aad u quwad weyn oo ku siin kara fursado aad u badan iyo successba insha Allah haddaad sida saxda u samaysid sida saxdan u isticmaashid waad aragtay wadanada westka sida looga isticmaalo brand iyo sida muhiim uga yahay runtii waxay ka mid tahay lacagaha bangiga u yaalo kale ayay la mid tahay inay haystaan brand adag oo aad loo garanayo oo maxay ahayd adduunka ka dhex muuqda so adiguna maanta bilow brandkaaga oo insha Allah success ba ka helaysaa haddaad videogan ka faa'iidayna ha iloobin like iyo subscribe videoyaal lamida insha Allah. Assalamu alaikum.